بسم الله الرحمن الرحيم مقعيق ودكتور إيدل محمد عبد الرحمن الموضوع الرومانت إن كهذا وحوي هاي دورك كليهين رجع جريهودا وحا آمنسن هاي أما ضد بدن بقى آمنسيهين رجع قاركود إن كالنت كليهين رجع كو أكتها إن رجع بحان صبحي شقت تجان قوت كيسود عيان هبيندي أما قلبه إن يعني جريهود كسون نقدان يعني إن أي تاي كالنتاسي كالنت وجمهم سن رجع مسؤولية دودا تهاي anigoo qadarinayo isla markaana ixtiraamayo fikirkaasi sidoo kalena og juhdiga badan iyo howlaha badan ee ragga Soomaaliyeed ay u hayaan qoysaskooda haddana waxa meesha ka marneen in fikirkaasi uu yahay fikir qaldan oo kaalintaasi kaalmo kale oo ka muhiimsan isla markaana ka yar ay jiraan oo meeshana ka maqan tusaale ahaan hadda aan soo qaadano xagga caawinaada markii la dhaho guriga in ay ku kooban tahay oo kaliya gabadhii guriga joogtay oo kale hooyadii ama xaaski cid kale oo maxay ahayd garab aan ku siinin ay jirto taasina loo arko in ay tahay waajib oo gabadha ka saaran in ay howlahaasi ay ka soo baxdo subaxii inay gabadhi soo kacdo oo kale gurigii hagaajiso caruurtii maxay ahayd u labisto iskuulada u kala dirto maanta oo dhan shaqada guriga ee ku taagnaato in loo arko macnaha in ay tahay gabadhi in howsha seeta ay waajib ay ka saaran tahay wiilkina uu arko in mas'uuliyad ay ka saarneen نبينا صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها مركي لو يديي نبينا محو غوري كقبتا محو ku jawaabtay in arigiisa uu lisan jiray dharkiisa uu tolan jiray naftiisana uu qidmeyn jiray taasna waxa halkaas nooga soo baxay in nabiga uu noo yahay qudwa xasana loo baahan yahay in lagu daydo wax yaani oo dib oo ka imaan kar ma jiro wiilka haduu xaaskiisa caawiyo caawinaada ma ahan oo kaliya in maalin walba uu jikada dhex taagnaado cuntada kariyo ama dharka uu dhaqo caawinaada waxay noqon kartaa waxyaabo simple ah tusaale ahaan gabadhi cunto ku kariso oo kale cuntadii jaahis ah marka ay kariso waxa ka caawin kartaa cuntada inaad dhahdid ana soo diyaarinay maanta dhanaa jikada ku jirta iska fadhiiso oo kale waa wax simple ah waxa kale oo sameyn kartaa hadii taas xitaa kugu adag tahay ama iloodid cuntada yaa lagu soo diyaariyay miiskaaga yaa lagu keenay si madax oo kale lagu sharfay waa ina garatid cuntadaas markii la dhameeyo alaabta xitaa ina qaadi kartid oo jikada ku cili kartid waa wax yar oo simple ah ilna kuma weynaysid ofna kuma yaani kuma galayso taas waxay keeni kartaa qofkii lamaanaha kugu ahaa ama guriga kula joogay inuusan nafsadiisa u arkin inuu qaadim yahay ama shaqaale adig ku yahay oo kale ixtiraamna uu ku dareemo iyo naxariis iyo jacayl waxa arkaysa rag badankood يعني waxyaabaha keeni karo ama hadii la isweydiyo in raga aysan caawinin gabdhahooda maxay noqon karaan hadii la isweydiyo waxa koow ah caado soo jireen oo dhaqanka Soomaaliyeed in rag loo arko ceeb inay tahay oo kale ninka inuu caawiyo xaaskiisa ama ragnimadiisa ay hoos u dhigayso taasina waa fikir qaldan oo maxay ahayd bulshada dhan ku baahsan markii rag la fiirinayna ninka guuleysto waa ninka u jajaban isla markaana mutawaadic ku ah oo isla weyni aan ku jirin marka uu gurigiisa uu joogo oo hool walba gurigaas la qabanayo in uu yahay yani qayb ka yahay qodobka labaad waxa waa waqti yiri in ragga qaarkood ay dhahaan maanta oo dhan shaqo ku maqnaa waqti uma helaayo oo kale taasina waa fikir been ah sababtoo ah waxa arkaysa shaqooyinka waqtiga ugu badan oo laga soo baxo hadaa u fiirsatid waa 12 saac waa ninka ugu shaqada dheer kuwa kalena waxay soo baxaan 8 saac duhurnimo oo kale markii shaqada laga soo baxo dhalinyarada badankood oo xaaslayaasha hadaa u fiirsatid waa yarta waa hal iyo dhif ninka soo baxo oo shaqadiisa intuu ka soo baxo gurigiisa tagay toos u tagay ama joogay inta kale waxa la sameeyaa maqaayadaha la fadhiistaa yani shaaxiya meel lagu cabaa qaar waxay gaaraan habeenadii oo kale xitaa casho xitaa meelaha magaalada ka soo cunaan oo gabadhi guriga joogto oo jikada ugu jirta cashadeeda xitaa inaan la cunin taasina waxay keenaysaa dismoral inay gabadhi ku noqoto sababtoo ah waa qofka inuu fahmo gabadhaaneed masaakiinta ah ee gurigan joogto hadafka iyo sababta ugu weyn ee gurigan u joogto waa aad dartaa adaa reerkooda ka soo kaxeysatay aday guriga ku joogtaa gurigan wuxuu ku dhisan yahay labada qofood ee lamaanaha isku ah waa mushaaraka nolosha qoyska waxa isla leedihiin gurigaas quruxdiisa waa isla leedihiin burburkiisa waa isla leedihiin caruurta waa isla leedihiin hoosh guriga taal waa isla leedihiin noloshan sideed waxay ku qurux badan tahay wadajir iyo in la iscaawiyo oo gacmo wadajir wax ku gooyaan
waxaa dhacaysa marka in hoteelo la fadhiisto oo kale habeenadii meesha lagu soo daa maxay ka dhibay oo kale in shaqadaada marka aad ka soo baxid waxa u baahan tahay nasiino waxa mas'uuliyad ka saaran tahay caruurtaada aaba noocee ahaa tahay markii aad subaxii aad baxdid caruurtaadii oo jijiifo habeenkiina aad soo noqotid isla caruurtaada ayagoo jijiifteen aaba noocee ahaa noqon kartaa markaasi waxa mas'uuliyad oo ka saaran tahay ma ahan oo guriga oo kaliya caruurtaada barbaarintooda iskuulaadka ee dhigtaan waxyaabaha lagu soo baro heerka waxbarashadooda halkay marayso waa dhibaato marka aad la kulantid cunugaagi sanad dugsiyeed ama iskuul sanad dhan uu soo waday oo lacag aad ku bixinaysid maalinta imtixaanka inaad ogaatid cunugaagi inuu imtixaanka ku dhacay taas cunuga oo kaliya sabab mu ahan mas'uuliyadda ugu badan waxa keenaysa adiga iyo hooyadana waxa mas'uuliyaddaas looga leexin karaa waa qof maanta oo dhan gurigaas ka dhex shaqeynaayo oo dhex fadhiya soo waqtiga yarka aad helaysid oo maqaayadaha la fadhiisanaysid يعني عيب maahan in asxaabtaada aad kulantid waa wax wanaagsan waa wax loo baahan yahay laakiin waxay leedahay xad iyo xuduud saaxiibka maalin walba in aad kulantid ma ahan oo isbuuci maalina ka qaadan kartaa asxaabta aad kulmaysid laakiin every day ina maalin walba meel fadhisid dhibaatooyinka ka imaan karo waxa kamid ah marka hotel fadhiisata waxa la fiiriyaa faa'iidada iyo faa'iido darada ka soo galayso oo kale horta koo faa'iido darada kaaga imaanayso waxay tahay maanta oo dhan aad daalneed waa shaqeynaysa qof bin aadan ah waxa u baahan tahay nasiino maadan helin oo fadhiga ku jirta hadana ku soo noqota ama shaqadii ku jirtay yani dad badan waxay u aaminsan relax inay ku dareemayaan laakiin waa cagsi relax lagu dareemayo qodobka labaad waxa waaye qarasha ka baxaayo nin guri leh oo maxay ahaatay xaas u joogo qarashkii uu gurigiisa ku bixin lahaa ama maxay ahaatay ama gurigiisa oo uga baxay qarash kale inuu meesha ku baxo waxyaabo uusan u baahnayn xataa meeshaas inuu ku fangareeyo oo kale asxaab kale lagu tashanin inay yimaadaan oo meesha wax lagu bixiyo qodobka kale oo ugu dambeeyo ugu daran waxay tahay horta anaga magaalada aad joogno ma ahan magaalo saamaxayso in meelaha la fadhiisto waa magaalo dhibaatadeeda iska badan tahay oo maxay ahaatay adoo ku tashaneen qarax iska dhici karo ama musiibooyinkeeda iska badan yihiin soo waxay keenaysaa maalaa yacni inaad ku dhimatid oo kale adigoo meel iska fadhis iska shaaxays iska fadhi ku dirir ku jiro iska qoslaayo يعني waxa waay wax aan qurux badnayn in aad ku geeriyootid oo kale taasna waxay keenaysaa yani walwal zaid ee qoyskaaga iyo maxay ahayd mas'uuliyad daro aad samaysid marka waxa haboon in gurigaaga waqtigii shaqada ka soo bixid inaad toos u tagtid caruurtaada waqti aad siisid xaaskaaga waqti aad siisid xitaa hadaadan wax u qabanaynin xitaa aragtidaada iyo la joogaaga waxay u yihiin wax muhiim ah oo niyada ugu dhismay laakiin marka subaxii baxdid oo habeenkiina yani hotel ma aha guriga ma ogtahay hadaa hotel amal aad ka dhigtid waxay keenaysaa taas in qofka uu nafsiid ahaan xitaa uu u dilmo waxaan sidoo kale maxay ahaatay gabdhaha Soomaaliyeed ama gabar walba waxaas ay ku gubaabin lahaa ama kula talin lahaa ayada laftirkeed ragana maadaama ay maanta oo dhan shaqo ku jiraan ay u baahan yihiin nasiino iyo maxay ahaatay meel ay madax ku degsadaan in ay u arkaan ayagana gurigooda inuu yahay guri jano soo dhaweeyaan ragooda sameeyaan waxyaabo keenaya in uu ninkaanata gurigan baxsad uusan ka noqonin uu ka ordo waxyaabaha keenayna waxa kamid ah guriga haduu yani 90% hadaa rag weydiisid guriga ma tagtid aadadid waxay ku jawaabayaan buuqa iga horeeyo iyo xisaabtanka badan in ay yareeyaan waxyaabaha muhiimka ah bas inay ka hadlaan waxa jira waxyaabo la dhaw tajaahul oo loo baahan yahay gabadha inay iska indho tirto aanan habooneen inay macna wax walba ay ka hadasho buuqa badan iyo qeylada badanna qofka waxay ka dhigtaan calaamadaha sheedaanku uu leeyahay waaye waxaaga adoo u baahan ama fariintaada adoo gudbinaysid waxa isticmaali kartaa wada saxsan oo isla markaana qurux badan adoo dagaal iyo qadjac aan galaynin ragana sidooda waa libaaxyo waxay u baahan yihiin oo kale xeelad iyo tartiib in aad wax uga qaadatid laakiin hadaa isku xarfaanisid oo dagaal iyo qadjac iyo qeyl ah keentid taas waxay keen kartaa adi nafsadaada xataa inay dhibaato ku keento waxna ma kaga faa'iideysid soo ragayna soo dhaweesta waxyaabaha keeni kara inuu gurigiisa u badnaado ama u soo ordo sameey buuqa iyo qeyladana aslanbo ina iska soo jirtid ugu dambeyn waxa hadalkayga ku soo koobi lahaa guriga wuxuu u baahan yahay in la mushaarakeeyo in gacmaha la isqabsado in wadajir wax loo sameeyo si gurigaas uu noqdo guri qurux badan isla markaana isfaham ku dhisan iyo jacayl iyo naxariis waxaana jirto oraah dhehayso man la yarham la yurham qofka aanan naxariisanin looma naxariisto haddii aalabadiina isku naxariistiin dadka kale oo idinku dhow oo dhan way idin naxariisanayaan halkaasna waxa ka soo bixayso naxariista inay tahay shay qaali ah oo qof walba oo bin aadan ah u baahan yahay waa mahadsantiin